Everybody on the floor! subaxnimadii 24 Agoosto 1994 magaalada caasimadda oo ah Morocco ee Marrakesh gaar ahaan waddo lagu magacaabo Faransa oo caan ku ahayd hoteelada raaxada iyo ciriiriga dalxiisayaasha 4 nin oo hubeysan ayaa xoog ku galay mid ka mid ah hoteelada waxayna rasaas si aan kala socodin ugu fureen dalxiisayaashii ku sugnaa hoteelada waxaa dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalihii hoteelka halka 2 dalxiis oo u dhashay Spain la dilay warkaas wuxuu gilgilay Morocco iyo guud ahaan dunida Carabta 3 maalmood oo kale kadib gaar ahaan 27 Agoosto waxaa la qabtay dadkii weerarka geystay waxaana la ogaaday inay jireen shabakado kale oo hubeysan oo qorsheynayay in ay weeraraan magaalooyin ay ka mid yihiin Tanja, Fas iyo Casablanca 3 maalmood oo kale kadib 30 Agoosto dowladda Morocco waxay si rasmi ah ugu eedeysay sirdoonka Algeria inuu ka dambeeyay weeraradan waxayna ku soo rogtay fiiso muwaadiniinta Algeria ee soo galaya dhulkeeda jawaab ahaan Algeria waxa ay gabi ahaanba iyadana xirtay xuduudihii u dhaxeeyay labada dal waxayna joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee u kala gooshi jiray labada wadan xaaladaasna ilaa iyo maanta waa mid taagan in ka badan 31 sano muwaadin Algerian ah si toos ah uma gali karo gudaha Morocco sidoo kalena muwaadin Moroccan ah isna si toos ah uma gali karo gudaha Algeria